in aad aragto gabdho baranaya xirfadaha qaar sida kuwa farsamaynta alaabaha iyo makaanikada waa mid dhif iyo naadir ah sababo la xiriira curfiga iyo caadooyinka ka dhex jira bulshadeena balse waxaa dhanka kale jira qaar yar oo ka mid ah gabdhaheena oo ku dhiirada in ay bartaan xirfadaha la xiriiriyo ragga kuwaas oo meesha ka saara aragtidii laga qabay kolkii hore. Bishaaro Mustaf waa da'yar ka mid ah gabdhaha hadda ku howlan barashada farsamada gacanta sida faryaamada, samaynta alwaaxyada iyo sariiraha oo yaraanteedii ay jeclayd. waxaan bartaa maadada carpentry oo ah maadada faryaamada. noocyo badan ayaa jirto aniguna waxaan bartaa habka loo sameeyo sariirada, alwaaxyada, miisaska, kuraasta iyo wixii la midka ilaahay xirfad ay bartaan oo maxay noloshooda iska fikiraan oo meel way iska soo saari karaan. waxaan dhihi lahaa barta maadadaas waxaan ku jeclaa si aan aniga mustaqbalkayga aan ugu fikiro nolosheedana horumar ay u gaarsiiso. Shukri Cabdiwali waxay dhaliil iyo hadalhayn kala kulantaa ardadii ay dugsiga dhex isla dhiganayeen balse waxay dhiirigelin ka heshaa qaar ka mid ah waalidkeeda. والله waxa u badan gabdhaha oo dugsiga dhex iskaala soo baxnay macnaha ma fahmeen ma ila fiicnay dhahan ina barto farsamo oo waxa qaban karin nimanka loo talagalay. wallahi abu waa la fiicanta laakiin hooy iyo awriiro ma la fiicnay laakiin aaba ugu raacsan macnaha ma qaban kartid hawshaas ma lagu talagalin waxyaabo kale baran kartid aad jirto leedahay. Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah maamulka iskuulka farsamada gacanta ee Buruuj waxa uu qabaa in gabdhuhu ay la mid yihiin wiilasha ayna si la mid ah u baran karaan xirfadaha ay doonaan. farsamo ahaan wiilka wixii la baraa wixii loo sheegay wiilka loo sheegaya xishoodkaasi ka duwan tahay xishoodkana muxuu ahaa Allah ku abuuray waana loo baahan yahay laakiin markii wax barashada la joogo gabdhaha runtii ayaga ugu sareeyba حقيقة ويلش أيها وكذا في عن فرصمدي يحرفدي يفهمكي دلالكي أنت وجبدها أيها هاي مركب جبدها واحد جار الله ده سجار ما واحد برتان ما هي جبدها وحيلم الدهين ويلشس توصينا رنتي ولا معامل المعلمين توضا إنه لا فهمان وأنا كو أماننا رنتي جبدها نلجوجا إني هذا هو شاسي آد وهيان kaalmana ay ka galaan fasalladooda ugu horeeyaanba ay gabdhaha xirfadaha markii laga hadlayo waxa jira kuwa soft ah xirfadaha kuwa hard ah jira xirfadaha gabdhaha kale waa tiro badan yihiin oo aad loogu xagliyo inay bartaan waxa kamid ah muxuu karinta waa xirfad qodheeda waxa kamid ah in ay qofka uu barto harqaankii fashion design-kii waxyaabahaas oo dhan waa xirfado waay haddana laakiin markii laga fiiriyo dhanka ragga in wax la qaybsan karaan ilaan raggii qudhooda fashion design-ka way galaan oo waxbayna shaqadeeyaan cunno karintii waxbay ka qabtaan marka gabdhaha inay raggii aysan dhihin waxaan farsamo rag waaye ayaa loo baahan yahay naftirkooda qayb ka galaan dhankii farsamada ragga ay wax la qaybsadaan marka saawadeed waxaan ku waanin lahaa ama aan ugu baaqi lahaa gabdhaha inay farsamadii oo ragga ay wax ka qabsanayeen ayagana qodooda ay wax ka qabtaan ayna bartaan isku dhiirigeliyaan awood iyo xoog iyo maskaxna ay geliyaan insha Allah taala. Barashada xirfadaha farsamada gacanta waxay kaalin ka qaadanaysaa in la helo bulsho da'yarteedu ay yihiin xirfadlayaal kuwaas oo kaalin ka qaata in bulshadeena ay horumar ku talaabsato.